Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee Suldaanka Media oo aad si toos ah kala socotaan xarunteena dhexe ee magaalada Nairobi. Daawadayaasheena nagu cusub fadlan subscribe saar si aad u hesho akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. qodobada warkeena subaxnimo aan idinkugu hayno ayaa waxaa ka mid ah lacagta lagu sii deyn karo dhaqaatiirta Kuuba ee dhawaan laga afduubtay ismaamulka Mandera oo ay Al-Shabaab shaaciyeen. farmaajo oo kashifay sirta la xiriirta madashii maamul goboleedyada ay codsadeen isagoona soo hadal qaaday waxyaabaha sida rasmiga ah isugu hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug. xog la yaab leh oo ka soo baxaysa halka uu ku bariyay gaarigii ku qarxay xarunta warta nabadda. abwaan Weed Same oo si cajiib ah uga hadlay wiilkii lagu xiray isagoo wata calanka Soomaaliya iyo faalo la yaab leh oo baraha bulshada la isla dhex qaadayo oo ku saabsan maxaa ka jira in Saddam Hussein uu weli nool yahay. warkii ofidsan kooxda Al-Shabaab waxa ay shaaciyeen lacagta lagu sii deyn karo dhaqaatiirta Kuuba ee dhawaan laga afduubtay ismaamulka Mandera. odayaal dhaqameed ku howlanaa ka qayb qaadashada sii deynta dhaqaatiir u afduuban Al-Shabaab ayaa shaaciyay natiijada ay kala soo kulmeen xubnaha Al-Shabaab ee haysta dhaqaatiirta u dhalatay dalka Kuuba. wararka la helayo ayaa sheegaya in xubnaha afduubtay dhaqaatiirta u dhalatay dalka Kuuba ay dalbadeen lacag madax furasho ah oo gaaraysa 1.5 milyan oo doolarka Mareykanka ah. sida odayaasha dhaqanka ay sheegeen, sirdoonka Kenya ayaa sheegay in dadka afduubtay dhaqaatiirta ay marka hore ahaayeen kooxo burcad ah balse markii dambe ay u gacan geliyeen Al-Shabaab, taasi oo xaaladda ka sii dartay. odayaasha dhaqanka ayaa Al-Shabaab ka afduub ahaan u haystay dhaqaatiirta dalka Kuuba waxa ay kula kulmeen deegaan u dhaxeeya Bu'aale iyo deegaanka Ceel Cadde, waxayna bedeleen qorshihii ahaa inay sii deeyaan dhaqaatiirtaasi, waxaana ay soo bandhigeen in lacagtaasi la siiyo. odayaalka kala socda magaalooyinka Beled Xaabo iyo Mandera ayaa ragga afduubka u haysta dhaqaatiirta kula kulmay tuulo ku taala hawdka u dhaxeeya labada magaalo, waxaana ay dalbadeen 1.5 milyan doolarka Mareykanka ah haddii kalena aysan sii deyn doonin. warbaahinta dalka Kenya gaar ahaan TV-ga Citizen ayaa baahiyay in koox haysata dhaqaatiirta u dhashatay dalka Kuuba ay dalbadeen 1.5 milyan oo lacagta Mareykanka ah. odayaashii loo diray wadaxaajoodka lagu soo deynayo raggaas ayaa soo qaaday dalabka kooxda afduubka haysata, waxaana haatan aan la ogeyn in dalabkaasi la fulin doono in kale. ciidamada ammaanka Kenya horey waxa ay isugu dayeen in qaab awood ah ay ku soo furtaan raggaasi, hase ahaatee maysan u suuragelin. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka hadlay sirta la xiriirta madashii ay maamul goboleedyada codsadeen iyo ujeedka shirka Garowe. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda sanad guuradii 76 ee ururka dhalinyarada SYL oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirkii Garowe iyo sababihii keenay in la isku fahmi waayo. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in markii horeba shirka Garowe ujeedka loo tagay ay ahayd in laga wada hadlo arrimaha amniga oo uu ku sheegay inay tahay midda ugu muhiimsan oo hortaala dowladda iyo maamul goboleedyada, balse wuxuu sheegay in markii shirka la tagay ay madaxda maamul goboleedyada la yimaadeen qodobo kale. wuxuu sheegay in qodobadii ay maamul goboleedyada soo jeediyeen ka mid ahayd in la dhiso madal ay ku mideysan yihiin dowladda iyo maamul goboleedyada. madaxweynaha ayaa cod dheer ku sheegay inay dowladda dhexe ka diiday maamul goboleedyada in la dhiso madal, wuxuuna taasi ku micneeyay in ay soo arkeen dhibaatada iyo faa'iidada ay leedahay in la sameeyo madal. madaxweynaha ayaa xusay in sharciga uu qabo in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kulmaan sanadkiiba mar la isaga wareysto xaaladda amniga ee dalka uu marayo iyo arrimo kale oo muhiim ah, balse wuxuu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin in madal la sameeyo. maamul goboleedyada ayaa shirkii Garowe ku soo bandhigay in la sameeyo madal ay ku mideysan yihiin dowladda iyo maamul goboleedyada, balse wuxuu Farmaajo banaanka u soo saaray inay arrintaasi ka hor timid dowladdiisa. hadalka madaxweynaha ee ku saabsan shirka Garowe ayaa ahaa mid aad loo wada sugayay, wuxuuna arrintaas ka aamusnaa dhowr maalin, balse hadalka madaxweynaha ayaa u muuqday inuu ahaa mid laga soo isla markaana si kulul ayuu arrintaasi uga hadlay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale waxa uu ka hadlay xaaf isagoo sheegay inuu u diiday in muddo kororsi uu sameysto. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda sanad guuradii 76 ee ururka dhalinyarada SYL ayaa xalay waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah oo la xiriira maamulka Galmudug. madaxweynaha oo ka hadlayay shirka Garowe ayaa sheegay in qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada gaar
gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu doonayay inuu waqti kororsi sameeyo taasna ay kor timid dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in markii hore Xaaf ka ogolaaday in dib u heshiisiin loo sameeyo garbaha isku khilaafsan maamulka, balse wuxuu sheegay in uu dib isku bedelay markii lagala soo hadlay meel ka baxsan shirka oo uu sheegay intaasi ay tahay qorshe aan wanaagsaneyn. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda Galmudug ay tahay inaan waqti kororsi loo sameyn karin, isla markaana la xaliyo khilaafka taagan loona diyaar garoobo doorasho cusub, balse ayna marnaba suuragal ahayn in Xaaf loo ogolaado muddo kororsi iyo maamulada kaleba. Madaxweynaha ayaa Xaaf ku eedeeyay inuusan qaadan daawadii ay u baahneed Galmudug oo ah in la sameeyo dib u heshiisiin iyo in la iska hilmaamo waqti kororsi. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayay arrinta Galmudug ayaa ku kaftamay xaaladda ka jirta inay la mid tahay sida qof xanuunsan oo loo baahan yahay 3 marxalad inuu maro: in marka hore isbitaal uu tago, la ogaado xaalkiisa, in la baaro, kadibna daawo la siiyo, balse daawadii uu diiday madaxweyne Xaaf. Arrintan ayaa waxay ahayd mid xalay bulshada Soomaaliyeed si weyn ay u hadalhayeen, waxaana ay sheegeen in tani ay sii horin karto khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Abwaan Weersame oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaano geyga Soomaalida kana soo jeeda Somaliland ayaa si cajiib ah uga hadlay wiilkii dharka Soomaaliya xirnaa ee lagu xiray Hargeysa. Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo ka mid ah hal abuurka caanka ah ee reer Somaliland ayaa ka hadlay xariga ay ciidamada Somaliland kula kaceen wiil dhalinyaro ah oo ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya. Abwaan Weersame ayaa waxa kale oo uu ku baaqay in si mug leh loo baaro sababta xilligan oo 18 May ay u diyaar garoobayaan reer Somaliland keentay in wiil dhalinyaro ah uu calanka Soomaaliya ku labisto. Abwaan Weersame ayaa arrintaas kaga hadlay qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook, wuxuuna u dhignaa qoraalka sida tan: adduunyada ma jiro qof miir qaba oo sabab la'aan wax isaga sameeya, sidaa darteed wiilka calanka Soomaaliya soo xirtay sababtu u xirtay baa jirta. Haddaad tiraa maxaa adiga ka quseeya ee aad raadinaysaa sababta uu u xirtay, haddaad tiraahdo maxaa adiga ka quseeya oo aad u raadinaysaa sababta uu u xirtay, soo xor maaha oo wuxuu doono ma xiran karo. Dabcan hadduu xor u yahay in uu wuxuu doono xirto, kolkaas dadweynuhu soo xor uma aha inay iska dhex qabtaan qof kasta oo ay doonayaan ama ay u arkaan inuu dhib ku yahay. Haddaad tiraa halkeenu ku dhiganay sharciga diidaya in la xirto calanka Soomaaliya, jawaabta oo fududay waxay tahay halka aynu ku dhiganay sharciga inoo diidaya inaynu bijaamaha lagu seexdo ku shaqo tagno aynu kana ku dhiganay. soo baar goorta iyo goobta sharciyadaas aynu dhiganay. Abwaanka ayaa waxa uu sheegay inay haboon tahay in baaritaan culus lagu sameeyo sababta rasmiga ah ee keentay in wiilkaas uu xirto calanka Soomaaliya, iyadoona mamnuuc ay ka tahay in lagu xirto deegaanada Somaliland. Horay Somaliland ayaa dadyo kala duwan waxa ay ugu xireen deegaanadooda dad ku soo labistay dhar u eg calanka Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen in ay caqabad ku tahay jiritaanka qarannimada Somaliland oo ay aaminsan yihiin inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale. wararkii subaxnimo oo aad kala socoteen Suldaanka Media waa naga inta.